أنا garsoore أحمد محمد شيخ إبراهيم بارديرة كان مد كان ترسن لطرياش أما garsooreyaasha maxkamadda sare anigoo ku hadlaya ragga asxaabtayda oo ila fadhiya caawa afkoodana ku hadlayo dhammaan garsooreyaasha maxkamadda sare oo ugu horeeya gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda sare Dr. Maxamed Dr. Luu waxaan halkan ay ii wakiisheen ama aan ku hadlaya anoo afkooda ku hadlayo waxaan awalan isla qaadanay maanta goor aan shirnay kowdii kowdii maanta duhurnimo waxaan isla qaadanay go'aan aan ku gaarnay in awalan aan taageerno dekreetadii ama xilka qaadistii gudoomiyaha maxkamadda sare Ibrahim Idle Suleymaan oo madaxweynaha qaranka maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu xilka ka qaaday ayaan soo dhaweynay oo guddiga maxkamadda sare dhammaan xubnaha maxkamadda sare ay soo dhaweeyeen maanta inta kadib waxaan isla garanay in anagu soo dhaweyno si wanaagsan ula shaqeyno ayaan ballan qaadnay gudoomiyaha cusub ee loo magacaabay maxkamadda sare ee dalka shalay galab sidaas ayaan anagu go'aan ku gaarnay isla qaadanay waxaan kaloo isla qaadanay aan soo dhaweynay inay sharci tahay xilka qaadistii gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare Ibrahim Idle Suleymaan waxa weeye xilka qaadistaas waxa weeye sida qofka markii hore uu ku soo galay ayuu haddana ku baxaya gudoomiyaha maxkamadda sare ee hore wuxuu ku soo galay nidaam wuxuu ku soo galay magacaabis oo madaxweynaha uu magacaabay ma jirin guddi adeeg garsoor hore jiray oo magacaabay ma jirin sida ayuuna haddana ku baxay inta waxa anaga noo dheer ay golaha isla qaateen maxkamadda sare waxay isla qaateen in laga shaqeeyo ama gudoomiyaha madaxweynaha dalka ay ugu baaqeen inuu soo dedejiyo golaha adeega garsoorka ayay isla qaateen in ay soo dhaweynayaan haddii alle inuu soo dejiyo oo loo helo golo garsoor haga garsooreyaasha kale toosiyo wixii ka qalloocdo ayaa la isla qaatay